xilligani dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay la dhibaatoonaysaa in ay u hesho ciidamada AUSOM kabki dhaqaalaha ee markaasi la siin jiray kaasi oo dawladda Mareykanku ay goosatay sidoo kalena haatan ay dadaal ku bixinaysa in booskaasi ay ka baxeen cid buuxisa aan la helin haddaba ciidanka Ethiopia in maanta ay ka baxaan degmada Buurhakabo oo ay joogeen tan iyo sanadii 2014 maxay uga dhigan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale maxay uga dhigan tahay maamulka koonfur galbeed ee haatan uu hogaaminayo aadan maxamed nuur aadan madoobe waxaana sida wararku ay sheegayaan ciidamada Ethiopia gabi ahaanba ay faarujin doonaan maalmaha inagu soo aadan magaalooyin ay ka mid yihiin Waajid Baydhabo ilaa Diinsoor iyo deegaano kale oo badan oo weli aan la shaacin ciidamada Ethiopia ayaa si degdeg ah deegaanadaasi uga baxaya iyada oo deegaanadana ay yihiin kuwa ay kaabiga ku hayaan kooxaha al-shabaab oo muddo dheer laga hortaagnaa waxaan sidoo kale eegi doonaa daawadayaal ciidamadan ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay ka niyad jabeen si joogitaanka gudaha dalka Soomaaliya iyada oo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya wali wax hal ah aysan la imaanin oo ciidamadani ay ku sii joogi karayaan geesta kale waxa arintani markaasi ka faa'iideysanaya xiisadani maamulkii hore ee xoogga looga afgambiyay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulkaasi koonfur galbeed ee uu hogaaminayay lafta gareen waxaana taasi ay u noqon doontaa dhabarjab ninka la yiraahdo aadan madoobe in ciidamada Ethiopia ay baneeyaan aagagan muhiimka ah oo aad ay ugu dhawiin kooxaha markaasi khawaarijta sidoo kalena ciidamada lafta gareen taabacsan ay duleedka magaalada Baydhabo ku sugan yihiin waxa la leeyahay oo wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ayba ku joogeen wajiga ama sidoo kale sababta Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen hadii meesha laga afgambiyay oo ka baxayna sabab ay ku sii joogaan aysan jirin balse haatan ay ku marmarsoonayaan in dhaqaalihii markaasi ciidamadan la siinayay Mareykanku uu goostay sidoo kalena aysan jirin wada kale oo haatan halkaasi ay ammaankeeda ku sii sugaan haddaba arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo oo maalmo kali ah ay deegaanka istiraatiijiga ee Teedan la yiraahdo ee gobolka Hiiraan ay la wareegeen kooxaha al-shabaab muddo dheer kadib taasoo ciidanka xoogga dalka markaasi ay ka baxeen wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada Ethiopia oo markani deegaano badan oo koonfurta dalka Soomaaliya ka baxaya ayaan muuqaalkani ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan oo la gareeyay si share gareeyay oo la wadaaga saaxiibadiin si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan ay ku baahinayeen soo gaaraan aad ayay u mahadsantiin waayahay aynu ku horeyna daawadayaal maanta degmada Buurhakabo ee gobolka Baay ee koonfur galbeed waxa si rasmi ah uga baxay oo u faarujiyay ciidamada Ethiopia oo ammaanka deegaanadaasi sugayay taniyo sanadii 2014 magaalada Buurhakabo ayaa magaalo istiraatiiji ah sidoo kalena qiyaas ahaan magaalada Baydhabo u jirta 60 kiiloomitir hadda ogow isla magaaladaasi Baydhabo waa halkii duulaanka laga soo qaaday maamulkii xoogga looga wareegay xukunka ee uu hogaaminayay Cabdicasiis lafta gareen ciidamada Ethiopia ayaa waxa ay markaasi si degdeg ah maalnimadii shalay ahayd ugu wargeliyeen uguna yeedheen saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee magaaladaasi Buurhakabo ku sugan kuwaas oo ay u sheegeen in amniga magaaladaasi ay kala wareegaan sidoo kalena iyaga halkaasi ay ka qalab aruursanayaan tii ayaana dhacday oo maanta waa ay ka baxeen magaaladaas waxaana ciidamadaasi ay u soo ambabaxeen danka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee koonfur galbeed xarunta ugu weyn ee ciidanka Ethiopia waxa ay ku taalaa magaalada Baydhabo gaar ahaan garoonka Shaati Guduud ee diyaaradaha halkaas ayaa ciidankaasi ay imaanayaan iyada oo sidoo kale lagu wado in ciidamadani ay dhammaantood hal mar iswada raaci doonaan oo ay banayn doonaan talisyada ay ku leeyihiin magaalooyinka Waajid Baydhabo iyo sidoo kale Diinsoor dabcan deegaano kale oo badanna waa ay jiraan oo ay ka bixi doonaan laakiin inta haatan la sheegay waa deegaanadaas ee sida rasmiga uga bixi doonaan maalmaha inagu soo aadan haddaba arrintan ayaa waxay imaanaysaa daawadayaal xilli ciidamada midowga Afrika loo laayahay
mushaaraadkii la siin lahaa iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa dagaalada markaasi ay kula jiraan kooxaha khawaarijta inkasta oo Soomaalidu ay ku kala qaybsan tahay oo dadka qaar ay aaminsan yihiin in ciidamadani aysan waxba qabanin balse lacag badan ay ku qaataan joogitaanka gudaha dalka Soomaaliya haatan xaqiiqda aan la iska dhitiri karin ayaa waxay tahay maanta Soomaaliya amnigeeda kuma filaan karto sidoo kale iskama difaaci karto kooxaha markaasi al-shabaab waxaana taasi markaasi tusaale ku aha in deegaano badan oo istiraatiiji ah oo kuwa ugu muhiimsan ah maanta ay gacanta ugu jiraan al-shabaab oo waliba xataa ciidanka xoogga dalka toddobaadkii la soo dhaafay lagala wareegay deegaanka teedan oo ah dhanka gobolka Hiiraan ayaa meesha markaasi al-shabaab ay la wareegeen iyadoo sidoo kale aadan yabaal ceel baraf ilaa sidoo kale cows weyne ay yihiin meelaha kooxaha al-shabaab ay aadka ugu xoogan yihiin ee shabeellooyinka arrintan ayaa sidoo kale daawadayaal waxaa lagu tilmaamay in kooxaha markaasi al-shabaab ay fursad weyn ka heli doonaan deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo kale bixitaanka ciidanka markaasi Ethiopia oo la sheegaya in ay muddo dheer ay ku hortaagnaayeen in ciidamadaasi ay soo galaan gudaha deegaanadaasi koonfur galbeed sida Buuraha Kabo Diinsoor Waajid ilaa Baydhabo haddii markaasi ay banneeyeen oo ay ka baxeen waxa ay ka dhigan tahay in markaasi si rasmi ah markani ay ula wareegi karayaan haddaba daawadayaal 2014 ayaa ciidanka Ethiopia ammaanka magaaladaasi Buuraha Kabo ay la wareegeen oo ah markaasi magaalo istiraatiiji ah waxaana xilligaasi markaasi la sheegay in ammaanka magaaladaas ay noqotay mid markaasi ay kooxaha al-shabaab iyo weerar joogto oo ku hayeen ay markaasi joogsadeen sidoo kalena inta badan la ogyahay al-shabaab in aysan ku hagaagin meelaha ciidamada midowga Afrika ay ku badan yihiin ama saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin waa muddo laga joogo 12 sanadood ayaa ciidamadani halkan ay ku sugnaayeen laakiin maanta waa ay baneeyeen xeryahaas oo waxaa loo sheegay oo lagu wargeliyay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalkaba in ammaankooda markaasi iyagu ay isku tashadaan deegaanadaasina ay u banaynayaan haatanna waxay ka qalab qaadanayaan dhanka magaalada Baydhabo sidoo kale daawadayaal arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweynihii xukunka xoogga looga tuuray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo wacad ku maray in uu Baydhabo iyo deegaanadaasi uu dib ula wareegayo isaga oo markaasi sheegay in uusan aqoonsanayn maamulka cusub ee xamar laga keenay isla markaana maanta magaalada Baydhabo maamulaya oo aadan madoobe uu majaraha u hayo iyo sidoo kale in marnaba qadiyada shacabka reer koonfur galbeed aysan ka tanaasuleynin waxa la xasuustaa in Laftagareen iyo sidoo kale Ethiopia xiriirkoodu uu aad u wanaagsanaa sidoo kalena haatan waxa la leeyahay in ciidamadaasi ay baxaan waxa sabab u ahaba in ninkii Laftagareen ahaa ee saaxiibka ay ahaayeen ee sida dhow ay ula shaqayn jireen meesha uu dhaafay taasi oo markaasi moraal jab ay kala kulmeen ciidamada Ethiopia haddii Laftagareen dib Baydhabo ula wareego ma joogi karaan bay kula tahay ciidamada markaasi Ethiopia mise waa go'aan ay gaadheen oo markaasi ay kaga cararayaan dhaqaale xumida soo food saartay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaramada midoobay oo Mareykanku ay ka goosteen kabkii dhaqaalaha ee markaasi loo soo marin jiray in lagu bixin jiray ciidamada midowga Afrika hadaba xaaladan ayaa mid loogu hadalhaynta badan yahay maanta isla markaana laga soo tabinayo deegaanada markaasi koonfur galbeed sida degmada Buuraha Kabo oo maanta ciidanka Ethiopia ay ka huleeleen waa warka ugu weyn ee maanta markaasi suuqa yaala waynu eegi doonaa daawadayaal xaaladda ammaanka ee degmada Buuraha Kabo iyo deegaanada kale waxa iska bedela kadib bixitaanka ciidanka Ethiopia dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka ma ku filan yihiin sugidda ammaanka ee deegaanadan ciidamadani ay banaynayaan mise waxay noqon doontaa mid markaasi ay ka faa'iideystaan kooxaha markaasi argagixisada ah iyadoo sidoo kale sheegaya xataa saraakiil muhiim ahaa oo dhanka dawladda ka tirsanaa inay horey maanta u sii raaceen ciidamada Buuraha Kabo ka baxay waxaan jeclahay muuqaalkan inaan markaas ku soo gabagabeeyno dhanka ciidamadii Laftagareen oo duleedka magaalada Baydhabo ku sugan iyo fursadaha laftigooda ay heli karaan
haddii ciidamadaasi ay baxaan iyagii al-shabaab ayaa noqon doona kuwa loogu cabsida badan yahay aadan madoobena weli baydhaba dhanna ma uusan ooga bixin haddaba ciidamada jiidaha hore ku sugan ee la magac baxay ciidamada dib u xoreynta ama ciidamada halganka dib u xoreynta ee taabacsan lafta gareen iyo muuqaaladooda ugu dambeeyay cid nooga wakiila inay gudoomiye baarlamaan doorato maadaamaan aaminsaneen in baarlamaan Soomaaliyeed uu jiro maadaama waqtiga ka dhamaaday ma jiro dadka reer koonfur galbeed yaana la khaldin cidaan u soo dirsanay in ay nooga wakiil tahay malaha bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ganab wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya meel walba dunida kaga nooshiin walaalayaal sida la og yahay baa daraawiishta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya muddadii la soo dhaafayba waxay u diyaar garoobayeen haddii ilaahay idmo sidii loo qaban lahaa degmada Baydhabo iyo koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo dabcan la rabo in laga xureeyo dadkii ku soo duulay ku soo gardarooday dowladnimadeenna dhaawacay sharafteena iyo midnimadeenna inta haddii ilaahay